waxaan la hadlayaa midka u maqnaanaya si ula kac ah waxaan leeyahay mahadsanid anigu waxba iimaadan dhibin waxaan la hadlayaa midka maqnaanaya kadibna ila imaanaya marmarsiyo beena waxaana ku leeyahay anigu waxba igama naaqusinayo maqnaanshiyahaaga waxaan la hadlayaa midka igu imaanaya keliya dantiisa waxaan ku leeyahay anigu ma ihi sidaad imooday oo ma ihi mid doqona balse iska jaahilsiinta aan iska jaahilsiinayo arrinkaaga weliba anigoo og waxaan uga gon leeyahay oo keliya inaad wax ku garatid balse haddaadan isbeddelaynin ha ii iman adigoo fikirkaagu sidaasi yahay waxaan la hadlayaa midkaan arkaya keliya markii ay baayi hayso oo uu dan leeyahay kadibna markii uu helo wixii uu rabayna aan weynayo haddaba waxaan ku leeyahay wuu dhammaaday wakhtigii fursaddaada anigana kuuma falaya waxaad iga filanaysay waxaan la hadlayaa midka ii dhoola caddeeya markaan hortiisa taaganahay markii aan ka maqanahayna iga dura dhabarka oo iga sheega waxaanan ahayn oo badan waxaan ku leeyahay midkaasi waan ogahay waxaad igu samaynaysid balse waxaan eegayaa halka ay gaarsiisan tahay doqonnimadaada sidoo kale inay noqdo awood daran oo aanan awoodin balse gadaalka hadlayaala taasi waxay ii caddaynaysaa inaan ugu yaraan cagta saaray waddadaydii guusha waxaan la hadlayaa dhammaan kuwa ii dhow ee aan ka xushay dadka misna iyaga ii sababay dhammaan dhaawacyada i soo gaaray waxaan idin leeyahay waad ku mahadsan tihiin maxaa yeelay waxaan idiin ahay yool iyo meel aad rajaysaan sidoo kale waad mahadsan tihiin sababtoo ah waxaan ficiladiinna ka bartay cashiro aanan ka baran jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada anigu ma ihi miday beddelaan shakhsiyaadka si kasta ay isku soo aruursadaan anigu ma ihi midkii u istaagi lahaa hadallada ay gadaashayda ka sheegayaan anigu kuma shaqeeyo awaamirta ay bixiyaan cadowyada waxaan ku shaqeeyaa oo keliya amarka allaha sarreeye ay abuurtay idinkana si kastaa u daala aniga waxaan ahaanayaa aniga uun marnaba iskama beddelayo sidaydii idinka dartiina haa iskama beddelayo